bismillah maanta waxaynu ka hadlaynaa caruuraha aanan jeclayn in ay fariistaan miiska oo ay cashirkooga bartaan ama ciyaalka ay ku adag tahayba in ay guriga cashir ku sameeyaan ama aanan jeclaynba in ay revision ama homework ama miiskaba aanan arki karin. Sidee baa caruurta loo caawin karaa ayaanu ka hadlaynaa maanta. Ugu horeys waxaynu u baahannahay horta in ilmahaaga haddaad waalid tahay in aad adiga iyo ilmahaaga isla ogaataan waqtigee ayaa naasiba ama waqtigee ayaa ku wanaagsan inuu ilmahaagu wax baran karo. Mathalan waxaad isla dooranaysaan waqti subaxa ama waqti gelinka dambe ah sidii markaa idinka idin naasibta as a family ahaan. Kadib waxaad samayn doontaa waxyaalahan soo socda. Waxaad noqonaysaa qof ku hadlaya luuqad uu ilmahaagu fahmayo. Waxaad ahaanaysaa markaad hadlaysid luuqada ilmahaagu uu fahmayo oo haddana ah straightforward, like toos baad ula hadlaysaa. Waxaad ka oranaysaa anigu waxaan rabaa in aad homeworkan imika samayso. Marka aad sidaa aad leedahay waa inaad sii cadaysaa intee in la eg ayaad rabtaa inuu ilmahaagu sameeyo, imse page, muxuu yahay homeworka uu samaynayo, ma xisaabba, ma English ba. Marka ilmaha ma daalinaysid oo ma dhahaysid orodo homeworka samee oo iskama tagaysid. Waxaad noqonaysaa qof clear, qof yacni si cadaan ah u hadlayo, waadix ah. Waxaad oranaysaa waxaan kaa rabaa in aad samayso homeworkan intaasoo page. Waxaadna u raacinaysaa timeka aad rabto inuu specifically uu dhameeyo, yacni waqtiga aad rabto inaad aad ka rabto ilmahaaga inuu dhameeyo cashirkaasi inta page uu ahaa. Kadib waxaa laga rabaa as a waalid ahaan in aad noqotid waalid positive ah, yacni waalid kalsooni ka muuqato, waalid ilmihiisa ku kalsoon oo yacni aanan xanaaqsanayn, dagaalamaynin, diriraynin, adoo si deganaasho ka muuqato ayaad oranaysaa samee oo tusayana inaad positive tahay oo dhiirigelinaya. Marka intaa markaad kasoo gudubto waxaad u baahan tahay ilmahaagu kula hadli doonaa, uu ku jawaabi doonaa. Jawaabta waa inaad dhegeysataa ama su-aal buu ku weydiin doonaa. Waa inaad dhagaha u furtaa oo aad dhegeysataa muxuu rabaa. Wuxuu ka orani way badan tahay ma samayn karo, yacni wuxuu bilaabay gorgortan. Wuxuu ka oran ma samayn karo homeworkan intan la eg, waxaan rabaa halfkan inaan sameeyo ama sidaa inaan sameeyo. Adiga always wax uu ku yiraahdo ilmahaagu ma samayn karo ama waa samayn karaa, waa inaad dhageysi u yeelataa oo aad daba gashaa hadhow toole muxuu sidaa u leeyahay, maxay tahay hadday ku adag tahay markaa isla ogaada, sidee baad xalal kalaad markaa raadinaysaa. Always ama inta badan mar walba waxaa lagaaga baahan yahay as a waalid ahaan inaad support provide garayso, yacni inaad ahaato qof ilmihiisa garab taagan maanta oo dhan. Waa inuu garab kaa helaa ilmahaagu si uu u jeclaado in ay muhiim tahay waxaan uu sameynayo ay isaguna u fiican tahay, uu adiga dartaa u sameynayo, naftiisa uu u sameynayo. Ta kusii xigta waxa weeyaan inaad yeelataan discussion ama haddii uu waxaan sameyn waayo aad ka wada hadashaan waxa dhici doona, maad ciqaabi doontaa, maad saamixi doontaa, yacni waxaana waa inaad ka wada hashaan. Waa inuu ilmuhu lahaadaa waxa dhici doono inuu sii ogaadaa consequenceska, yacni cawaaqibta ay leedahay. haddii markaa waxaad noqonaysaa waalid maxaa la yiraahdaayey dhiirigelinaya oo haddana soo dhaweynaya inuu ilmihiisu si independent ah, si xorriyad ku jirto oo free ah inuu isagu wax walba ku samayn karo. Waad soo dhaweynaysaa taasina. Ugu dambaystii waxaad tusaysaa ilmahaaga inaad qadarinayso, appreciation ayaad tusaysaa oo waxaad oranaysaa waxaanaad samayso oo dhan waan ku faraxsanahay. Markuu wixii dhameeyo uu sameeyo waad encourage garaynaysaa, waad dhiirigelinaysaa, waadna qadarinaysaa ha yaraato ama ha badnaato waxa uu sameeyey. Markaad sidaa waxan oo dhan aad samayso waxaad noqonaysaa yacni waalid adiga iyo ilmahaagu xiriir fiican iniga dhexeeyo, aanan qaylo iyo buuq jirin. Marka aad leedahay kaalay waxbaro ama kaalay fariiso miiska, caruurta ay ku adag tahay inay fariistaan miiska ayaa talooyinkan leh.